مسائب قوم عند قوم فوائد. مasiibada qoom waxay faa'iido u tahay qoom kale. Ethiopia waxay ku taagan tahay halug maadaama ay dagaal sokeeyo ku jirto. Kumanaan dhimasho ah iyo qaxooti hoy la'aan ah. Masar ma ka faa'iideysan doontaa dagaalkan? Mise biyo xireenka Ethiopia ayaa noqon doona kan faa'iida? Maxaa dhacaya? 1947 waxay Ethiopia u soo taagneyd inqilaab military oo xilka laga xayuubiyay imbaradoriyadii ugu dambeysay xilligaas ee Ethiopia ka talisa. waxaana hoggaanka la wareegay wadanka Haile Selassie. wadankana waxay muddo ku wadeen xoog iyo xabad, waxaana ka sii dambeeyay xilligii kelitaliskii Mengistu Haile Mariam, waxaana xilka hayay ilaa sanadii 1991. waxaana xilligiisii wadanka ku faafay gaajo iyo fakhri aad u ba'an oo daba dheeraatay. waxayna qabaa'ilkii Ethiopia go'aansadeen inay isku dabaridaan colaad ka dhan ah horjoogaha Haile Mariam si ay u bedelaan noloshooda. lana soco Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada ugu dadka iyo baaxadda weyn qaaradan Afrika, waxaana ku guuleystay hogaankii wadanka jabhadii Tigreega oo hogaaminaysay howlgalkan, iyaga oo Tigreegu yihiin qowmiyadda ugu tirada yar. waa 6% tirada wadankan 100 milyan ah, waana qowmiyadda ugu hubka badan sida la sheego. Tigreegu waxa uu wadabada u aasay dawladda Ethiopia, hogaankeedana waxaa hogaaminayay nin lagu magacaabo Tamirat Leyna ilaa sanadii 1991 ilaa sanadii 1995. kadibna waxaa kala wareegay xilka ninkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Malla Zenawi oo isagu hogaanka wadanka hayay ilaa uu iilka ka galay waa sanadii 2012. taas oo micnaheedu yahay in Tigreegu ay wadanka u talinayeen ku dhawaad 20 sano. sidaas oo ay tahayna waa qowmiyadda ugu yar Ethiopia, gobolkooduna waa gobol aad u yar, waxayna xad la wadaagaan Eritrea iyo Suudaan. waxaa xilka Ethiopia Mallas dabadiis dhaxlay oo la wareegay nin lagu magacaabo Haile Mariam Desalegn oo ka soo jeeda qowmiyadda Dhabuga ee koonfurta Ethiopia, waxaana bilowday kacdoon ka dhan ah maamulkiisii, iyada oo qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada oo ah qowmiyadaha ugu badan wadanka ay ka soo horjeesteen maamulkii Haile Mariam Desalegn oo lagu tuhmayay in Tigreegu hoggaanka u hayaan si dadban. waxaana yimaaday Abiy Ahmed Cali oo ah qowmiyadda Oromada, waxa uu sameeyay dadaalo uu dib u heshiisiin ka dhan ah Soomaalida iyo dariskiisa Eritrea oo colaadii ka dhex taagneyd muddadii 20 sano ahayd ee Tigreegu wadanka xukumayay. taasi waxay u sahashay inuu ku guuleysto biladda nabadda adduunka waa Nobel Peace Prize ka toddobaad ka bacdi markii uu Abiy Ahmed helay jaa'isadii Nobel Peace Prize ayaa Tigreegu diideen inay la midoobaan Abiy Ahmed, waxaana maankooda ka dhex guuxayay oraahdii ahayd waan taliyaaye ii talin maysid. waxa uuna ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku eedeeyay Tigreega inay doonayaan inay khalkhal geliyaan deganaanshaha wadanka. in muddo ana waxa socday hadallo maldahan oo labada xukuumadood ee hawada isku marin jireen waatan Maqale iyo Addis Ababa ilaa ay tala fara ka haaday. markii caabuqa koroonuhu yimaaday ayaa Abiy Ahmed waxa uu baarlamaanka ka codsaday in doorashada wadanka dib loo dhigo maadaama caabuqa koroonuhu uu wadanka ku jiro, taas oo sababtay inay is-caashiso gudoonkii baarlamaanka oo la dhihi jiray Teriya Ibrahim oo Tigreey ahayd, waxaana daba xigtay jagooyin kale oo Tigreegu hayeen oo ay faaruqiyeen. taasna waxaa sii daba xigtay in xukuumadda Maqale ay ku dhawaaqdo inay doorashadooda qabsanayaan iyadoo ay koroonuhu jiro. Abiy Ahmedna uu arkay mid ku ah weerar toos ah iyo taxaddi cusub oo Tigreegu sameeyeen, waana uu diiday inuu aqbalo dawladda Tigreega ku soo baxday, waxaana xigtay inuu lacagtii ka bedelo. Tigreeguna waxay u arkeen dagaal toos ah lagu soo oogay, waxaana bilowday wajigii ugu dambeeyay qaraarka badnaa waa dagaal waxaa dhex maray labada dhinac dagaal aad u qaraar badan oo ilaa iyo maanta socda, kaas oo sababay inay ku nafwaayaan kumanaan Ethiopian ah, ayna kumanaan kalena u qaxaan dhankaas iyo xadka Suudaan ay la leedahay Ethiopia, taasoo sababi karta in jabhado ay soo galaan dhankaas iyo Suudaan. waxaase isweydiin mudan halkee ku dambeyn doonaa warkii biyo xireenka Ethiopia ee Jardi. shaki kuma jiro in Ethiopia noqon doonto tan ku khasaarta dagaalkan, maadaama ay kala fogeynayso cadaawadna dhex dhigayso shacabkeeda, dhaqaale ahaanna u burburayso, saameyn dirisnimona ku yeelan doonto Eritrea iyo Suudaanta ay jaarka yihiin.
dhanka kale waxaa dan weyn ugu jirta Itoobiya dagaalkan sababtoo ah wada hadaladii biyo-xireenka ayaa hakad ka imaan doona sidoo kalena waxa ay iyana dan ugu jirta Suudaan iyo Masar oo helaya fursad ay ku sii isticmaalaan biyaha Niil dhanka kalena Itoobiya dib u bilaabayso dhismaha Journey inta uu wadanku ka xasilayo dhaqaale ahaanna dib ugu soo laabanayo balse arrinku isbedeli karaa oo ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku baaqay inuusan wadanka ka dhici doonin dagaal sokeeye waxaana ognahay in ay ku dhawaaqday dowladda dhexe inay dhawaan qabsadeen magaalada Maqale inkastoo wali dagaalkii socdo uusan dhammaan daawade haddii aad ku cusub tahay kanaalka waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noo saadho sidoo kalena like saadho muuqaalkaas si aan u soo badiyo muuqaalkan la midka ah aad ayay u mahadsan tahay